muddadii 27 sano ee TPLF haysatay talada dalka deegaanada ay faragelinta ku haysay waxa kamid ahaa deegaanka Soomaalida oo si toos ah iyo si dadbanba ay taladiisa gacanta ugu hayeen generaaladii ciidamada ee herer ay saldhigga u ahayd saraakiishaas oo dawladda Milasana u qaabilsanaa fulinta maamuurada muuqda iyo kuwa aan la arag oo shacabka Soomaalida looga hortaagnaa inay madaxa kor ula kacaan kana hadlaan xuquuqdooda ummadda Soomaalida dhexdeeda waxa ay ka abuureen shirqoolo lagu baaba'ay had cad ayaa shacabka Soomaalida oo badan barimageeda lagu gumaaday goobo kala duwan oo deegaanka kamid ah qorshayaasha la maleegay ee lagu xasuuqay shacabka Soomaalida oo aad u badnaa waxaan tusaale u soo qaadanaynaa dhowr goobood oo si ula kac loogu baabi'iyay shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan bishii labaad ee sanadkii 2010 taariikhda Yurub ayay saraakiil TPLF Cabdi Maxamed Cumar kula kulmeen golaha oo ka tirsan Mombasa qorshaha ayaa ahaa in shacabka la xasuuqo si loo ogolaysiyo maamulkii jiray iyadoo maamulkii deegaankuna ku raacay fikirkii ay wateen saraakiisha TPLF halkaasna shacabka deegaanka ay uga bilaabatay dhibaato hor leh iyo beegsi aan kala joogsi lahayn oo lagu tirtirayo bulshada shaqadii ugu horeysay durbaba waxa ay ka bilaabeen malqaqa bishii afraad sanadkii 2010 iyadoo si aan loo kala aaba yeelin si wada jir ah loo xasuuqay 83 qof oo kamid ah shacabkii tuuladaasi taasoo sababtay in qoysas badan ay halkaasi ku baabi'een waliba sabab la'aan waana kuwan qaar kamid ah waxgaradka malqaqa oo inooga qusoonaya qaabkii xilligaasi halkaasi ay wax uga dhaceen gumaadka anagoo malqaqanaalo oo degmada dhanna uga kicin kana baqanin gumaadka nagu dhacay dhalaabtii dawladdii malise uu watay cabdi maxamuud cumarre uu noo adeegsaday dhibaatadii nagu dhacday dhaartaasi bilaabantay habeenna nagama joojinin iyo maalintoona habad kolba si aan u le'annaba taniya madowgii tisheegii dhulka socday iyo federaal kolba si ay u dhacdaba habaddu raggu halkodle u dhimayaa labaley u dhimayaa saddexley u dhimayaa habaddu way nagu socotay 83 nin baa dhaartii meesha ku dhabbaaday waxaa ugu horreeyey wiilkaan aan u dhalay ee curadkaygii ahaa oo 5 carruura ka tegey beerta meejan eega qadaadkayga ku quman isagoo saa aqalkiisa ugu jira intii laga bixiyey baa beer meejantada kobta dariixa eega shaqyaha badan ku leedeen yaa lagu dhex dilay 3 habeen kolku meel yiile baa raqdiisa aan aragno raggiiba waa lala tago sagaal baa la isku xidho iraysaa la abaaraa la yidhi waan ka soo daba tagnay waxaan u tagnay geed iriira isagoo sagaal yaalin wiil malaha firxaday oo wiilkaasi wuxuu ahaa wiil madi ahoo wuxuu ahaa ree xirsamatara oo hal wiilu ka tagay la yidhi haa 8 kalena ree cismaan bay ahaayeen haa 9 kiiba waa la dilay kolkii lagu dilay yaan raggii wiilashii yaryaraay intii firxadkii iyay yidhaheen meydkaana guri ha gurina hooyo idinkana waa laydinku imanay laynagama fogee annagunba hooyo u seexane idinku cararana qaarka dambe u macaan tahay raggii waan iska cararsiinay annagii baa shalmada kariska eega kolkaan arka waan qaacaa shalmadii baan saa ugu dhignay kolkaan qaadi kari weyneen saddexdanadii saa aan isu gudubnay saa u waxaynay gabadhii dhexda ahayd annagoo shalmadii intaan uga baanay jiitinkii nabal inaynu qaadi karro saddexdeennu aan dhabarka saa u sinno kolkaan saa u qaadnay yay mid ka yar fakaday mameyd bay haween qaadi oohini ma jirto ilma ma jirto calaacal kale ma jiro ilaahow una bahal cunin baan leenahay aniga 6 meyd oo gabadhayda ninkeedii iyo adeerkeed xabsa sheekh habiib wiilkii qabay oo ina takhala iyo adeerkii oo maxamed qorana ah oo lamaan iyo waxaa ku jiray ina bisle iyo waxaa ku jiray aniga dumaashigay oo axmed siyaad sheekh maxamed iyo cabdi sheekh maxamed mid aayaanu ahaa aaya adeer midna dumaashigay buu ahaa ku kalana adeer buu ahaa 6 meyd haddii qumaati loo aasa ardaagayga la dhigi lahaa waxa weeye anagu dhibaatadanadii way badnayd dil bay ahayd dab bay ahayd dabitaan bay ahayd dhagax ragga lagu laayay ahayd waxa weeye anaga ka xabada lagu dhufto ee xabada lagu dilo waxoo maanaan aragsanay kala dabi ee suunkiisa inta laga furo lagu dabi ka dhagaxa inta saa dhabanka loogu saaro lagu jafaqi ka hilibkiisa kolba in la gooyin ragga calaadkiisa noqdo kaare daawada loo neenayaa soo dareero qaay ragga dhowr sida loo geli waagu hadduu ku bariyo caawa gabalinu ku dhiciyeen kale kolkaad gabalku uu ku dhacay ogaanaysa barani cadceed ku dhacday haddana waa mu ku bariyo aad ku xisaabtamaysa
wakiiladii TPLF u joogay deegaanka Soomaalida iyagoo ku raaxaysanaya dhiigga bilaashka iyo naxariis la'aanta ku daadanaya waxay mar kale gumaad aan loo meel dayin ka geysteen bishii afraad sanadkii 2012 gunagado kaasoo ay ku dhawga jireen 49 qof waxaana inooga warramayay qaar ka mid ah eheladii ummadaasi la gumaaday iyo goobjoogayaal ka hadlaya sida ay wax u dhaceen. waa meeshii dadkii gumaadka ugu dambeysay lagu laayay waa meeshii sagaal kalka waxa ku jirtay waa 8 nin gabadh afar meel baa lagu hasay afar meel gabadhan gaar baa loo hasay baagaagii gumaadkii weeyay baash ka dhacay guriga heerku halkan uu deganaa beerahan buu lahaa oo aad u baxay wali waaga lahaa marka waa loo yimid wala soo uriyay kabtan laagta la soo geeyay ragii baa dhinac loo farsiyay waa saxarig baa la soo xidhay dadkaas waxaan ilmaadeer meeran gabadh waxa jirta wiilkeedii iyo walaalkeed iyo ninkeedii iyo adeerkeed iyo kulmay 6 la dilay oo isku heeraa oo qoys wada walaal ku lamana ayaa dhashay midna ninkeeda lamana walaal ahay gabartaas xataa ku jirtay dad shacab ama masaakiin baa beerli halkan sida degan waxay galabsan ma jirto shiftiyo xataa nimanka li joogal meesha meena marin waa lagu soo duulay habeen meel baa guura galay ciidan baa soo baxay kaloo yimid soo meel haga saamba baa soo marin tan loori xooli waa la kay waa la doobay magaalada lagu xiray kabti xooli nag ku yidaan meeshan arkayso waxay kamid tahay gumaadkii faraha badnaa ee ka dhacay mararkii u dambeysay magaalada Nakabaarna Gunagado dadka guud ee marka maalintii Xaj Cabdiqaadir Guuleed la dilay geeriyooday 49 ruux bay ahaayeen inba meel ay ku dhimataba halka marka reerkan arkaysan xabaashan hadda aan kor taaganahay waa saad u haysan waa 8 raga iyo maxay gabadha dadkii markii loo yimid subaxdii waa la ururiyay markii meel saa loogu rido markii dhinac baa loo ururiyay wiilashina dhinac gabadh hadda magaalada ku dhimatay baa waxay tiri waryaada waa la isfahmay nimanka ragga la baxay xalay aqalka maxaadeedii ku qayliyeene maxaad u leediin shifta haleysay gabadhii baas baa la mareysay oo waramin khadar afweene mise afka mid la dhaho oo Cabdiqaadir isu xigeen saasoo kale wuxuu dhahay war Afrika way isfahantay raadkii baan qaadnay buurta xagga dambe ka soo koray xaaladdu waa sidee isagina bartii baa baas lagu xiray ruuxu wax garay raadkii wax eegay war wixii inagu dib inoogu soo noqdayba baas sidii loogu xiriyay anagu halkan aaskii joogno oo marka aan aasnay waxa xirmaan maqashana waa laynu ku soo bax waan cararnay marka oo waxaan nin dhinta kabisa kana anaga ciyaal wixii waan baxsanay xagga ay bakaano cararnay sidaan baka buurta isu taagnay baabna lagu dhigay aniga bartaas lug iyo gacan la suuqa ka tiinaday waxa la ii qaaday maxay ahayd jeel ogaadeen ban 4 bilood ku jiray waa la ii qaaday gaari korkii oo wax xukumi tirin baa 15 sano lagu xukumay maxaad u oyday sidii baa la igu geeyay suway 3 baan joogay waa la iga qaaday qaaliti baa la geeyay Bashiir Axmed Maqtal baa la igu geeyay qaaliti isagoo jooga marka taas waa taasoo iminka dadka xabaashiisii qabrigiisii weeyaan oo taan iyadu waa dadkii geeriyooday bishii shanaad sanadkii 2012 ayaa Booladari lagu xasuuqay 50 qof oo kamid ahaa shacab masaakiin oo aan waxba galabsan oo loo gumaaday si bini'aadamnimada ka baxsan oo shacabka marxantiga nool ah ay dhacdadaasi ay ku macnaayeen mid la mid ah kii Hiroshima ee Japan ka dhacday dagaalkii labaad ee adduunka halkan waxa la yiraahdaa qabalahii gomashka ee dadka lagu gumaaday aan hadda aan uga gudbi doono sida loo gumaaday iyo tiradooda iyo sababkii lagu gumaaday markaas halkan qabrigan waxa ku jira konton baan ku aasnay goobjoogna wadacadada waan ka ahaa kuwii degta ku guuraya baan ahaa 10 baa la isugu xidhay waraarkan xaggan inaga xiga yaa iyagoo isku xidhan 10 shan ilaa hoosteeda ilaa korkeeda ayaa saa loogu daadinay markii lagu riday waad aragtaan in meel aan laga bixaynin inay tahay ayaa bareemkii lagu furay dadku sidaas baa ku leeday konton baa ku jira markaa xabaashan 7 ka baxsaday baa jiray oo qaybtani ay kamid tahay labadan xaggan midigtiga xigay oo dhaawac ahaa 7 ka baxday 7daba markii dhacdadaasi dhacday waxaa la yiri dadka waa la daweynayaa gacan baa ku dhacday dadkii waa 7diina waa la xidhay 57 markaas 4 ku dhinteen xabsiga 50 xabaashan ay ku aasan yihiin dadku wuxuu ahaa dhalinyaro ayuu badnaa aroos laga soo laba aroos isku dhow ayaa dhaqankii Soomaaliyeed iyo aroosku ayaa lagu soo ururay marka dhalinyaradii gabdhaha iyo wiilasha u badnaabu dadkaasi ahaa qayb agoomo oo yaryar baa ku jirto dadkan hadda kacaya
markaa dadku sidaas buu ahaa waxaan ahay dadkii meesha lagu gumaaday goob xun baan u soo joogay naf iyo maal iyo dad iyo kufsi wax noo hadhay ma jiro waana la rugmaday sidii naasigii jarmalkaana loo dhameeyey xabaalahani waa kuwii dadka lagu gumaaday tan 5 baa ku jirta taa 8 baa ku jirta halkaa 4 baa ku jira xabaalahani saasay ahaayeen 17 kaasi halkan ku jiraan intii kale halkan ma joogaan waan tagi doonaa waan ka warbixinaynaa dad nooma noola maal nooma noola ruux waliba wiilkii u dhalay gabadha ayaa haynaysay meydka ku dul urayay waxaas la waayay dhibaatada meesha ka dhacday wax quman ma ahayn wax laga sheekayn karana ma aha inkastoo aan la soo koobi karin tirada xasuuqyada iyo tacadiyada deegaanka ka dhacay ee lagu fulinayay amarada TPLF bixin jirtay waxa kale oo la xusi karaa sanadkii 2008 in qabalaha mooyaha lagu xasuuqay 50 qof oo iyagana si sabab la'aan ah nafta loo dhaafiyay